السلام عليكم sida lagu yaqaan kooxda caanka ee sameynta mowduucyada khaaska ee musalsalka kartoonka ee la dhaho qoyska Simpson amba Simpson family amba caa'ilatu Simpson waxay sameeyeen saadaalin iyo dhacdooyin aynaan hore u arag ilaa waqtiyada dhacaan mooyaane waxaad ka helaysaa xalqadaha Simpson dhacdooyin ka warramay mustaqbalka haddaba muxuu ka saadaaliyay musalsalku 2020 haddaba waxaan ka warramaynaa imika dhacdooyinka la yaab kale ay saadaaliyeen sanadkan haddii aad tahay mid aan la socon xalqadaha musalsalka Simpson oo aanad garanay saadaalaha ay bixiyaan kuwaas oo rumooba mustaqbalka fog haddaba waxaan ku noqonaynaa qaar ka mid ah saadaalihii iyo dhacdooyinkii kuwaas oo si dhab u dhacay mowsimkiisii lixaad ee musalsalka xilligii 1990 waxaa ku jirta xalqad ka mid ah arooska Liisa waxay saadaaliyeen in dadku ku wada hadli doonaan maqal iyo muuqaal amba ku wada hadalka fiidiyowga kaasoo soconaya waqti dheer ka hor intaanu faafin isla sidayna maanta naqaanaba waxay sidoo kale saadaaliyeen in dhismaha shaarad laga aasaasi doono lagana dhisi doono London 17 sano ka hor dhismihii isla sidii ayuu dhacday waxay sidoo kale saadaaliyeen in fanaanada Lady Chacha ay nafteeda ka soo laadaadin doonto fan xalfadeedka u khaaska isla sidii ayaa dhacday mustaqbalka waxaana sidoo kale ilaaweyn in musalsalku saadaaliyay guushii Donald Trump ee madaxtinimada Mareykanka kuwaasina waa kuwa aan idin daafeedi doono daqiiqadaha soo socda markii uu bilaabay mowsimkii 11aad ee sanadkii 2000 qofna mu awooday inuu Donald Trump xilliga ka dejiyo loona dhiibo Liisa xagga musalsalka sabab la xiriir dhibaato dhaqaale iyo soo dhac miisaaniyadeed oo ku yimid dawladda kaas oo sababay Donald Trump waxa ka soo muuqday musalsalka muuqaal laba kooxood oo ku jira arrimo doorasho oo dooranaya madaxweynaha ku habboon laakiin aaladii ayaa waxay doortay madaxweyne kale waxaasina waa kuwa sida dhabta u dhacay xilligii lagu wada jiray doorashadii khaaska ahayd ee madaxweynihii Obama waxaana si dhamayso waafaqday fiidiyowgii kuwaas iyo kuwa kale la mid ah oo ay ku jiraan dhacdooyin sawirro saadaalo kuwaas oo ay saadaaliyeen isla markaana u dhacay mustaqbalka sida dhabta taasi waxay ku tusinaysaa in dadka sameeya fili kartookan ay yihiin dad leh maskax cajiib ah haddii aan isku dayno inaan baadhno saadaalihii ay bixiyeen sanadka 2021 waxaynu helaynaa inay iyagu saadaaliyeen waxyaabo aad u xun sanadkan xalqadii ugu dambeysay ee musalsalka waxaan ku arkaynaa Mareykanka kaasoo baabaasan hab dhamaysa oo gubanaya haddaynu eegno taariikhda xalqadda waxaynu helaynaa January 20keeda 2021 saadaalintani waxay ka dhan tahay inay horumari doonaan fikirka iyo maskaxda warshaduhu inay soo bixi doonaan aalado dilaa kuwaas oo soo weerari doona muwaadiniinta kana fogaan doona bini'aadamka inay u adeegaan waxa sidoo kale hareyn doona faafitaanka fayraska iyo inay dadku xidhan doonaan face mask ama afsaabka dhanka kale in aaladaha tiknoolajiyadda iyo aaladaha mashiinada hawada sare ay ku heshiin doonaan inay xukumaan caalamka meeshana ka saari doona bini'aadamka amba waxay u gumaysan doonaan sida ugu xun sidan aad aragtaa miyay dhici doontaa 2021 ma jiro cid garanaysa ilaa imika laakiin waxaan u malaynaynaa in maskaxda gacan ku samayska ee waqtigan imika aanay ahayn mid horumarsan si kaamil ah si uu xaqiijiso arrintan waxyaabaha ugu badan ee uu ka warramay musalsalka 2021 ee rumoobay qayb ka mid ah waxa weeye isticmaalka robotyada si uu u caawiyo qof kasta oo caalamka jooga bilficil arrintu way rumowday sida waaqica imika waxaan helaynaa dad leh robotyo khaas ah kuwaas dadka u adeega mana yeelayaan amarada dadka kale ilaa amaradooda mooye waxa uu saadaaliyay musalsalku 2021 inuu tegi doono cudurku dadka robotka sababtooda oo iyagu gacmahooda ku daweyn doonaan sida awgeed waxaad helaysaa in doorka bini'aadamku ayir meesha uga baxayo sida darajada ka muuqata oo ay caalamka maamuli doonaan robotyadu oo ay bini'aadamkana ka fogeyn doonaan sidan hore u soo sheegnay inay Liisa qaban doonto xilka madaxtinimada markuu ka dego Donald Trump sabab dhaqaale awgeed taasi waa saadaalinta musalsalka ee nolosha siyaasadda sanadka 2021 laakiin haddii rogrogna xaqiiqda waxaan helaynaa in musharaxa Joe Biden uu yahay ka ku guuleystay doorashada Ameerika dhanka dadka la shaqeeya waxay noqonaysaa Kamala ku-xigeenkiisa khaaska sida caadiga Joe Biden waa qof daaweyn oo gaboobay waxaana macquul ah in la soo daristo mushkilada caafimaad taasoo ka dhigaysa inuu ka tago madaxtinimada si ay u noqoto Kamala madaxweynaha Mareykanka haddii rumoodantana waxaa dhacaysa in dumarka meel kasta ka jooga caalamka inay iyaguna u tartamaan doorashada madaxtinimada iyagoo ka baqan kalsoonina wata haddaba saadaalihii u ekaaday xaqiiqda dhanka siyaasadda waa
qaraarada kala qaybsanka doorashada ee ku dhacday Mareykanka. Intii lagu wada jiray doorashadii Mareykanka, qaraarada kala qaybsanka ee doorashada kaasoo ka soo muuqatay musalsalka waa sababtay in hoggaanka laga bedelo Trump lana dhiibo Joe Biden ee doorashadii Mareykanka. Miyadan la socod sidoo kale qofka duqaya ku jira musalsalka inuu eegiyo madaxweyne Joe Biden bise waa arrin fan oo kaliya oo ay ku saadaaliyaan in muusigu ku leeyahay saameyn weyn bini'aadamka darajada inay gaarsiiyeen inay caqligooda maamulaan. sababta wuxuu ku fasiray musalsalku waxa weeye in wakaaladda waddoonka ee Mareykanku CIO inay tahay tamaamulaysa arrintan kuna qabsanaysa muwaadiniinta iyadoo u maraysa muusiga. xaqiiq ahaan ma garanayno ma rumobi doonaan mise maya, laakiin waxaynu ognahay in wakaaladda waddoonka ee Mareykanku inay iyadu ku bixinayso caqli, awood iyo lacag si ay u qabsato caqliga bani'aadamka oo dhan, mana aha muwaadiniinta Mareykanka qura. haddiina hab cilmiyeysan tafsiir munaasib ugu raadino si aynu u rumaysano saadaalahooda iyo warbixinahooda, waxaynu helaynaa in dadka sameeya musalsalkani ay aaminsan yihiin caqiidada ku saadaali shay kasta bilaa xuduud, waxaana laga maarmaana inay iswaafaqayaan 100% saadaalada mustaqbalka ee waaqica dhabta. sidaynu dhammaanteen ognahay taariikhdu inay iyadu ku noqoto maray soo dhaaftay, taana waxay aaminsan yihiin dadka sameeya musalsalkan iyagoo iskhilaafinaya dadka iyo goobaha.